halkani daawadayaal waa telefishinka Universal page-kiisa Facebook goordhow waxaad daawan doontaan shirka jaraa'id gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo halkan ku qaban doono wariyaasha ayaa ka qayb galaya shirka jaraa'id ee gudoomiyaha waxaana uu gudoomiyuhu faahfaahin doonaa dhacdooyinka siyaasadeed ee dalka ka jira ee kalifay in uu dibadda ugu soo baxo hoyga ugu deganaa madaxtooyada ee Villa Hargeysa waxaana gudoomiyuhu shirkiisa jaraa'id sidoo kale ka mid ah oo kaga hadli doona xaaladaha ka jirta Baydhabo iyo doorashooyinka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya dhacdooyin kala duwan oo dhanka siyaasadda la xiriirta ayuu gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan taaban doona wariyaasha ayaa halkan diyaar ku ah si ay uga qayb noqdaan dadka shirka jaraa'id lala wadaagayo oo markaas halkan ayaad kala soconaysaan oo ah barta Facebook ee telefishinka Universal shirka jaraa'id ee Maxamed Mursal Cabdiraxmaan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya halkan waa goobtii dhawaan oo u soo guuray gudoomiyaha golaha shacabka kolkii ay isqabteen labada gudoomiye ku xigeen marka baarlamaanka Soomaaliya cadaadis kadib waxa uu soo guuray oo soo degay halkan oo ah hotel ku dhow airportka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaana gudoomiye Mursal tan iyo markii uu soo baxay oo qabtay mooshinkii laga gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo maysan dhicin in uu si weyn ama faahfaahsan ama muuqaalkiisa la arko uga hadlo dhacdooyinkaas laakiin maanta ayaa suurtagal noqon doonta haddii aan la idmo in shirkiisa jaraa'id oo halkan ku qabto gudoomiyaha ayaa hadda soo socda oo markaasi shir jaraa'id saxaafadda u qabanaya بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والصحافة كانوا كساب سيحي شقاقات كسعطاء كفر قلبيت خاصة مقالة بيضاء اللي حريت تدور الشضع مركور إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii ku dhintay shaqooyinkii ka dhacay magaalada Baydhabo labadii maalmood ee la soo dhaafay oo ay ku nafwaayeen dad badan oo uu ka mid yahay xildhibaan Cabdishakuur Yacquub oo ahaa gudoomiyaha guddiga amniga ee golaha wakiilada Koonfur Galbeed waxaana sidoo kale alla uga baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo intii ku dhaawacantay intii hantidooda ku weydayna bedel khayr qaba ayaan ilaah uga rajaynaynaa sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay in la dooran karo waxna dooran karo Mukhtaar Roobowna waa muwaadin Soomaaliyeed oo buuxiyay shuruudaha loogu baahan yahay musharaxnimadiisa sida ay cadeeyeen guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed oo guddoonsiiyay shahaado cadeynaysa inuu u tartami karo doorashada Koonfur Galbeed dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qofna lama xiri karo xarig aan sharciga waafaqsanayn awoodda dawladda marna looma isticmaali karo meel ka dhac dhanka ah
karaamada iyo xuquuqda aadanaha. waxaa nasiib darro ah in dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed uu ka dhasho qabashadii mukhtaar roobow oo loo soo xiray si baalmarsan sharciga maadaama aan amar maxkamadeed lagu soo qaban sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. heer kasta oo xukuumadeed waa inay haysataa kalsoonida iyo taageerada dadweynaha. sidaasi daraaddeed waxaa mudan in la xuso in shacabka dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ka biyo diidsan yihiin faragelinta xukuumadda, ayna u baahan yihiin inay u madax bannaanaadaan aayo ka talintooda arrimahooda gudaha iyo inay doortaan cidda ay rabaan. waxaa sidoo kale xusid mudan in aan ka dignay arrimaha maanta taagan oo aan sii saadalinay natiijada ka dhalan karta haddii rabitaanka shacabka koonfur galbeed la siin waayo tixgelinta ay mudan yihiin. sidaas daraaddeed ugu dambayntii waxaan ku baaqayaa in shacabka reer koonfur galbeed ay isdejiyaan, nabaddana adkeeyaan, sharcigana dhowraan. in guddiga doorashada koonfur galbeed ay dib u dhigaan doorashada madaxweynaha koonfur galbeed inta laga helayo jawi xasiloon oo ku habboon qabashada doorasho xur iyo xalaal ah. in kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed uu ka shaqeeyo dejinta iyo qancinta shacabka iyo dib u soo celinta kala dambaynta. in odayaasha dhaqanka ay muujiyaan kaalinta dhaqan ee ay ku leeyihiin nabadda iyo wadajirka guud ahaan ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka koonfur galbeed. in musharaxa xiran xorriyaddiisa dib loogu soo celiyo sida uu ugu dhaqsiyaha badan, loona oggolaado in dib uu ugu noqdo deegaankii laga soo xiray si uga mid noqdo murashaxiinta u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed. sidaasi oo kale waxaan xukuumadda ugu baaqayaa xildhibaanada xaq waxay u leeyihiin dhaqdhaqaaqooda xur inuu noqdo. baryahan dambe waxaa bilaabatay in xildhibaanada loo diido deegaanka aniga aan degganahay inay u soo gudbaan. waxaan leenahay arrinkaasi arrin wanaagsan maaha. baarlamaanka xor ayuu ka yahay golaha fulinta, wuu ka madax bannaan yahay. waxaan leenahay xukuumadda waa inay ilaalisaa sharciga waddanka u yaalla, dastuurka waa inay ilaalisaa, loo oggolaada xildhibaanada xor inay u noqdaan dhaqdhaqaaqooda. هذا وبالله التوفيق. هذا المحسنتين way gudoomiye waa telefishinka Universal Cabdicasiis okay way halkan ay soo degtay baarlamaankii waa uu xiran yahay khilaaf ayaa waddanka ka jira. maxaa xal ah oo aad samayn lahayd oo hadda aad shacabka u sheegaysaa? horta xal mucjiza ma aha marka ay isu furan yihiin xildhibaanada oo sida horta aad la socotaanba qodobka 92 ee dastuurka ku meel gaarka ah wuxuu u oggolaanayaa 92 xildhibaan oo golaha shacabka ka mid ah inay mooshin keeni karaan. mooshinka inuu saxan yahay inuu qaldan yahay iyo in mooshinkaasi laga hadlo waqtigu u baahan yahay. marka sidaa daraaddeed annaga waxaan rabnaa xaqay u leeyihiin xildhibaanada inay mooshin keeni karaan. mooshinkana wuxuu ka mid yahay shaqada baarlamaanka uu ka mid yahay. waxaan u baahannahay marka haddii la helo annaga ka baarlamaan ahaan diyaar uma nihin instituushanada dawladda oo hadda shaqaynaya inay dhibaato gaarto ma rabno. laakiin fii nafsi alwaqt ma ogolin in lagu tunto shuruucda waddanka. waxaan ka hadlaynaa waxaa waaye madax bannaanida baarlamaanka uu leeyahay in la ilaaliyo dastuurkaan ka hadlaynaa. haddii ay xiranto in la isu gudbi waayo dhaqdhaqaaqa xildhibaanada haddii ay noqdaan mid ay isu gudbi waayaan wax la xallin kara ma laha. aniga halkaan waxaan ugu soo wareegay waxaa ugu muhiimsan inaan helo xildhibaanada dhaqdhaqaaq furan inay helaan. waad la socotaan deegaankii hore oo aan degganaa suurtagalay noqon weysa xildhibaanada inay isu gudbaan. halkaan waxaan rabnaa marka xildhibaanada in loo oggolaado checkpointyada lagu celinayo laga daayo si ay u noqoto wixii la xallin karana xal aan ugu raadino. halkaan uma soo degin aniga buuq iyo rabsho iyo uma soo degin.
waxaan rabaa dastuurkaas kumeel gaarka in la ilaaliyo soomaaliya waxaa ku wanaagsan inaan sharciga dib u soo celinno ma aha fowdo inaan ku sii soconno ta kale 30 sano ku dhowaad ayaa waxaa la baalmarsan yahay instituushanada dawladdana ay la dhismi la'yihiin in qof walba uun ka fikiro waxa maantaas dhacaya marka ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa in annaga aanan u socon qalalaasi iyo aanan u socon wax dumin waxaan u soconnaa qof walboo ka mid ah ama dawladda ha noqdo ama mujtamaca soomaaliyeed ha noqdee inuu u hoggaansamo sharciga waddanka uu leeyahay haddii sharci lagu dhaqmi waayo dee waddanka waxaa waaye laguma tilmaami karo dawlad waxaan rabnaa marka waxaan ku celcelinayaa qofna yuusan u arkin waxaa la wado waa sharcigaasi in mar walba loo hoggaansanaado aniga aan u hoggaansanaada ninka kale oo shacabka oo caadigaana u hoggaansanaada anigii madaxdii ka mid ah haddaan u hoggaansami waayo kuwa kalena ay u hoggaansami waayaan dee taas macnaheed dawlad maaha aad iyo aad umahadsantay goorma la furayaa baarlamaanka villa hargeysaan ku shaqaynaynaa waxaan ku shaqaynaynaa meesha la yidhaahdo xaruntii golaha uu iska lahaa intaan shaqada bilaabin waad dareemi kartaa gudoomiyaha baarlamaanka mar walba intaan baarlamaanka la tegin wixii xaalada jira wuxuu kala shira guddiyadaad la shiraysaa qofka xal markuu raadinayana wuxuu u baahan yahay intaan la isu imaan ka hor inuu wax soo xallin karo marka waxaan ku shiri doonnaa meeshaanadaan tegi doonnaa wax dhibaana kama jiri doonaan insha allah kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo shir jaraa'id uu ku qabtay goornimo halkan kaga faahfaahiyay xaaladaha dalka uu ku jiro iyo arrimaha Baydhabo ayuu si dheer uga hadlay gudoomiyaha aad baad mahadsantiin daawashada page-ka telefishinka Universal anigoo Cabdicasiis oo ka idin tabinayay dhinaca waxa shirka jaraa'id igala qayb galay oo kaamirada duubayay Axmed Cali Bare Xafarow tan iyo kulanti dambe nabadiino